ka jawaabay su'aalihii ka baxayay ha idhaafin qaybtii ugu dambeysay 6 su'aalood oo fudaydka ahayd ma ka soo jawaabteen diyaar garoobaha waqtiga la joogaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سو دواada asxaabtayda meel kastoo dunida dacaladeeda kaga sugan tihiin waa mar kale iyo haydhaafin samsam haydhaafin insha Allah tacaala iyo barnaamijkeeni maskaxda tuuji hal xiraalayaashii qaybtii ugu dambeeyay ayaan ka jawaabi doonaa insha Allah tacaala. maanta waxaan qaadanaynaa qaybteeni lixaad jawaabihi ayaan soo gudbinaa insha Allah tacaala. walaalaha ka jawaabay ayaan soo qaadan doonaa su'aalo jawaabahoodii sida horeyba iiga barateen kadibna waxaan idin dulmari doonaa su'aalihii iyo jawaabihii oo dhameystiran. soo dhawaada maskaxdana fura insha Allah tacaala si fiican ula socda. hal xiraale waa maxay? adduunka uu ii sheega aniga idin sheegaye waa xujo adagoo ka fakar lagu yiri ama ku xalli su'aalaha dhibka xoog leh ku jiro ee ku dhaka faaraxis walba oo natiijadii xisaab ee ka soo baxda qofkii ka jawaaba lagu xurmaynayo la idinkana soo xiriirini dhageystayaal ama daawadayaal xarunta Zamzam Haydhaafin ay ku leedahay barta YouTube-ka xilliyada idin hayso firaaqada. haddaba fura maskaxda iyo dhagaha sheeg. maasha Allah walaalka nasiibka u yeeshay ee ka jawaabay waxa waaye walaalkeen Cali Cige inuu maskaxdiisa tuujiyo asaga ayaa ugu horeeya maanta jawaabaha. wuxuu yiri su'aasha koobaad jawaabteeda waa wadka uu yiri wadka ama geerida hadba sida loo yaqaano. number 2 wuxuu yiri su'aasha labaad jawaabteeda waa biyaha ayuu yiri. number 3 wuxuu dhahay su'aasha saddexaad jawaabteeda waa muuqaalka iyo dhadhanka ayuu yiri. su'aasha afraad jawaabteeda wuxuu yiri walaalkeen waa waraabaha. su'aasha shanaadna wuxuu yiri laba adinley oo dadka ah oo labada adin wax ku socdo dadka kaliya ma aha xataa shimbiraha iyo waxaas oo dhan way soo galaan. inta labada lugood ku socoto iyo inta afar lugood ka socoto ayuu ka wadaa laba adinley iyo afar adinley lugooley ayuu yiri wax lugaha ku socdo dhan. number 6 na wuxuu yiri waa cidida. marka su'aalaheena waxay ahaayeen waan idin kugu soo celin doonaa waana arki doontaan insha Allah jawaabana wada ogaan doontaan. walaalkeen Cali Cige aad ayuu u mahadsan yahay sida uu maskaxdiisa u tuujiyay maasha Allah tabaarakallah. inta uu sheegay intuusan sheegin uu ogaan doonaa dib dambe insha Allah tacaala qaybaha dambe markii aan ka jawaabayno su'aalaha insha Allah tacaala markaas ogaan doontaa. walaalka ama walaasha labaad ee nasiibka u yeelatay maanta inay maskaxdeeda tuujiso kana jawaabto su'aalaha maanta hal xiraalayaasha jawaabahooda waa cooking with bint sheekh. waa walaal youtuberad ah maasha Allah tabaarakallah. waxay tiri maasha Allah waxay soo qortay walaasheen biyo yani waa biyaha ayay ku wadaa. su'aasha labaad inay ayada u maleynaya waxa midabkooda aan la sheegi karin ee aan isticmaalno laakiin midabkooda aanan sheegi karin anaga isticmaalna xataa ma naqaan midabkooda maasha Allah. walaasheen bint sheekh aaday u mahadsan tahay sida inooga la qayb qaadatay oo ugana soo jawaabtay maskaxdeedana u tuujisay hal xiraalayaasha maanta ee ka baxaya channelkeena Zamzam Haydhaafin channel insha Allah tacaala. haddana waxaan soo qaadanaynaa walaalka saddexaad ama walaasha saddexaad ee nasiibka u yeelashay in uu maskaxdiisa tuujiyo kana jawaabo su'aalaha hal xiraalayaasheena maskaxda tuuji ee nooga baxay channelkeena insha Allah tacaala. walaalka nasiibka u yeeshay magaciisa in la soo qaado waa walaalkeen Bashiir Cabdi. walaal Bashiir waxa uu yiri su'aasha koobaad waa kansarka ayuu yiri. su'aasha labaadna waa biyaha. maasha Allah saddexdiinaba biyaha waa isku raacdeen maasha Allah tabaarakallah inay su'aasha labaad ay tahay. inta kaleeto maasha Allah tabaarakallah dib dambe ka dhageysta su'aalaha markaan ka jawaabayo hadda insha Allah. su'aalihan guda galaynaa. su'aasha koobaad waxay ahayd sheeg ku dhaca dadka ku dhacaan waxaan yaa si fiican u dhageysta. la iskuma daarto la isma qaadsiiyo yani la iskuma daarto qof kale uma gudbin kartid laakiin daawo ma lahan waa waxaan daawo lahayn oo dadka ku dhaco dadka dhan ay ku dhacaan ilaa loo dhinto daawo ma lahan ilaa ka dhimatid waa qabaysaa waxaas. marka mana la isku daarto la isma qaadsiiyo insha Allah tacaala waana wax dadka dhan ku dhaco waaye. walaalaha waan arkay waxay soo qaateen kansarka iyo wadka ayuu yiri walaalkeen Calina. walaal Bashiirna wuxuu yiri kansarka wadka waa geerida ilaa qofka uu ka dhinto waa geeridii taas ma ahan
kansarkana ma ahan kansarka ilaahay qofku ku rido ayuu ku dhacaa laakiin dadkoo dhan kuma wada dhaco waa wax dadkoo dhan ku wada dhaco waaye oo aan daawo lahayn mana la isku daarto insha Allah tacaala jawaabtana dhageysta number 1 jawaabteeda ama number 2 jawaabteeda waa gabowga waxa dadka ku dhaco aan la isqaadsiinin la isku daaranin ilaa dhimasho mooyaane daawo aan lahayn waa gabowga ama duqnimada sida ogtihiin ba qof kasto way soo martaa duqnimada waana waxaana dawo lahayn ilaa qofka uu u geeriyoodo dawo ma lahan marka kansarna ma ahan oo kansarka waa laga caafimaad ayuu ilaahay dadka ka siin karaa qofka waqtigiisa haduu dhamanin dad badan oo ka caafimaaday way jiraan inkastoo dadka badan u dhintaan gabowgana waa waxaanan dawo lahayn dadkana ku dhaca la ismana qaatiyo la iskuma daarto ilaa loo dhintana ku haynaya waa su'aasha koobaad jawaabteedii aad bay u mahadsan yihiin walaalaha isku dayay maasha Allah tabarakallah wana uga mahad celinaya insha Allah tacaala moor ina maskaxdiina tuujisaan insha Allah tacaala su'aalaha kalena aad ayaa u mahadsantihiin su'aasha labaad waxay ahayd sheeg wax aanan midabkooda la sheegi karin laakiin la isticmaalo anaga waa isticmaalnaa laakiin midabkooda ma la sheegi karo jawaabta waxay tahay su'aasha labaad waa biyaha kalarkooda lama yaqaano ma cado ma madoobo ma guduud no red ma ahan oo green ma ahan yellow ma ahan blue ma ahan orange ma ahan wax kalar uu leeyahay ma lahan purple ma ahan wuxuu yahay ma lahan biyaha kalarkooda lama yaqaano kalarkooda wuxuu yahay ma laha ilaahay baa naga garanayo waa biyaha way sheegeen walaalaha way mahadsan yihiin dhamaantood ما شاء الله تبارك الله ولي سؤالي حيني أيام كل حجرناه برنامج كيني مسكحة توجي هالحرالياشيني نوجا بحجري سمسم هاي دافين channel هذه channel كعصبتها هاي نصب سكرايب كسار إن شاء الله تعالى سياد أصحابتها أقصوا من نقطيد أقنا جوابتي سؤالها أقونت هذانا أقكررستي ما شاء الله تبارك الله سؤاشا صدحاد waxay ahayd sheeg geedaha maxay ku kala duwan yihiin geedaha ka baxo waxa ay ku kala duwan yihiin ayay ahayd su'aasha saddexaad jawaabta dhageysta marka jawaabta waxa ay tahay su'aasha saddexaad jawaabteeda geedaha waxay ku kala duwan yihiin waa number 1 magacyada number 2 magacyada ku kala duwan yihiin waa kala magac geedaha magacyo kala leeyihiin sida dadkoo kale dadka kulay geedaha yaqaano number 2 waxay ku kala duwan yihiin miraha qaar baa miro leh qaarna ma lahan number 3 waxay ku kala duwan yihiin oo kale laamaha qaar laamay leeyihiin qaarna laamo kama soo baxaan sida geedka alwaaxa laga sameeyo camal oo iska taagan iyo geedo kale number 4 hooska ama harka sida loo yaqaano mid baa la harsan karaa midna lama harsan karo waa qalayl marka hoos ma lahan qaarkood qaarna hoos bay leeyihiin oo hoostooda waa fariisan kartaa waana ku nasan kartaa sida geed talaalka oo kale su'aasheena afaraad waxay ahayd sheeg xayawaanka libaaxa marka uu duqoobo ama xanuunsado ka argoosta jawaabta dhageysta marka xayawaanka ka argoosta libaaxa markuu xanuunsado ama duqoobo waa daanyeerka sida ogtihiinba daanyeerka wuxuu koro geed ayuu koraa habeenkii libaaxana wuu u yimaadaa geedka ayuu soo luxluxaa siduu u soo dhaco daanyeerka xabadii soo dhacdana wuu cunaa markuu duqoobo laakiin way ku ciyaaraan wayna dhagaxay ku tuuraan si ay uga aarsadaan ciilkii ay u qabeen ayay ku ciyaaraan oo dhagaxyayaan isagana ma ciirsan karo mana cuni karo su'aasha shanaad waxa ay ahayd sheeg laba waxyaabood oo socda laba wax oo socda ama dhaqaaqa laakiin isku si aan u soconin ama u dhaqaaqin labada wax ee dhaqaaqa isku si aan u dhaqaaqin waa nafleyda ama noolaha sida xayawaanka iyo dadka iyo waxa aan noolayn ee hawada wado sida daqaaca iyo dabaysha labadaba way dhaqaaqaan laakiin isku si uma dhaqaaqaan su'aasheena lixaad waxay ahayd oo su'aalaha ugu dambeysay sheeg xubin jirkaada kamid ah ama organ jirkaada kamid ah oo aan dhiig lahayn dhiig ma lahan xubintaas jirkaadayna kamid tahay jawaabta dhageysta xubinta jirkaada kamidka ah ee aan dhiig lahayn waa qaybta aragtida isha ee yarta ah ee dhibicda ah malaha dhiig adigayna kamid tahay jirkaada ishaadi waaye aragtida dhamaa ku arkaysay laakiin dhiig ma lahan waa baari kartaan waa fiirin kartaan malaha dhiig dhibicdaas yarta ee aragtida ama baroonka ama balaaga hadba sidaa u taqaanaan dhibicdaas malaha dhiig adayna kamid tahay jirkaada ama aragtidaadii dhammaydba waayabo dhiigna malahan
هذا وما سنتين وسؤاشة لحد جواب تيدي حبنتي كم تكاجر كذا عن ديجا لهين ما شاء الله تبارك الله ما أنت سؤالهني أنت سنقول إنهين جوابه هذي ولا عليه كسو جوابي مسكحة ذا توجينا أد بأمهات سينهم وأمهات علنا سيدنا ولا صعدان يقروح ضبضا ولا لها كلا نقول عصبنا وحن لا كسو هذا channel كسمسم هاي دافين channel هذا يقول عصب تانا سبسكرايب كسار وحيدين سو دياري يعني واسمسم هاي دافين إن شاء الله تعالى إذن لنا سعودسين هاي سلام رأهان تانا إن سؤالك كلا تيجي جوابك كلا سيد هذا وقيب قادتي هاي لو بينا سبسكرايب كسار تسحب هذا la wadaag soona dhawow gacmo furan kusoo dhawow waxaa idiin rajaynayaa caafimaad meel kastoo ku sugantiin waxaana idiin dardaarmayaa cabsida ilaahay nafteedii naftiinaba intaan dib dambe hawada ugu kulmi doonana salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu